بان دي سلام ميدل يرو waxaad leeyahay jimco wanaagsan meel kasta joogtaan waa Khaliil show dhamaantiinba maanta waxaan joognaa HargeisaStadium waxaynu goob joog u ahaanaynaa ama waanu ogaan doonaa cidda guusha ku raacdo tartanka fardaha oo markii ugu horeysay Somaliland lagu qabto taasina waxay keenaysaa dhiirigelin dhanka sportska waana markii horeysay meel Soomaali degto lagu qabto tartanka fardaha aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maanta tartanka fardaha تعديل سلام لك للجامعة جامعة يبقى
waxaan gudaha ugu jirnaa waa tartanka fardaha oo hadda inooga socda Hargeysa inooga socda garoonka stadium Hargeysa runtii waxaad arki kartaan siduu u socdo tartanku ilaa iyo hadda waxaa si cad ugu guuleystay gobolka Murudshax oo haatan loo hambalyeeyo sidii faraskiisaba dhammaan mas'uuliyiinta gobolka Murudshax loo hambalyeeyo hambalyo baan leenahay guuleystaha gudoomiye magacaaga saddexan iyo aadan cabdikariim maxamed aadan abyad aadan gudoomiyaha tartanka جمال سوى كل في لها فكرة برنامج صح هذا أدي أدبر كده بهالعلة وحا يربط عدسنا يعني إن لقوا صدرت الكمال السوماليلاند مركز بين وزارتنا أرنكا كور واسفي عويان وحول يوم كيبلا ويهين وحيليهين قابس دمانان نقصان لكن ولو دمسرين magacaygu maxamed cali waxaan ka mid ahaa warbaahinta sida tooska ah kan u duubaysay ka soo qayb gashay tartanka fardaha ee dhexda gobolka Somaliland ciyaar aad xiiso badan baa dhex martay dhexda gobolka Somaliland fardooda xitaa fardaha qaar baa jiray shil daafi kamaradaha jiirayay marka waxa ugu xariibsanaa faraska gobolka Murudshax aniga waxa la yiraahdaa طبعا waa markii koowaad lagu qabto stadium Hargeysa tartanka fardaha maxaad oran kartaa maxaad ka oran kartaa tartanka waxaan oran karaa waa ciyaar xiiso leh runtii farduhu in la dhiirigeliyana dhalinyarada way habboon tahay oo dhalinyaradu ay ku dhiirigeliyaan si fardaha loogu tartamo